وأن كدونا هي مركا ويل أما جبر أبهد هو يدود أي سو ذا كوريين أنا وكدونا هي سلادرتاد هو يو حقيقي سمينا أنا جمعنا جارة إلى هذا وكدونا تذكر أما تذكر أي معناها جارة كأولى هذا يبان كجرا هو يدي وحي لما تي سنة كي هراء اللي هي 8 فبراير maalinkay hooyaday dhimatay runtii maalin xanuun badan bay ahayd waxaanan ogahay qiimaha ay hooyadu leedahay aan ogahay walaalaan nahay koox walaala ah oo aan saan idiin sheegay anugu aad ugu yarahay laakiin hooyaday ayaa isku kaaya haysay waxaana laga xukumay hal meel waxaan nahay famil aad isugu dhow oo ay hooyaday naga dhigtay inaan aad isugu dhownahay dhammaantayo waxaan ku qasbanaa waxyaabo badan oo ay hooyaday igu qasabtay inaan walaalahay u sameeyo oo aanan xeerar baa yaalay aanan ka gudbi karin dhinacna uga gudbi karin oo ay hooyaday noo dejisay si aan u noqono walaalo isugu dhow markii ay hooyaday dhimatay cabsi badan waxay runtii aan ka qabay inaan kala dhunno aniga walaalahay oo midkayaba dee gaar u foofo iyo reerihiisii uu ku aaday iyo wixiisii waxaa ilaahay mahad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta isku soo noqosho wanaagsan waana soo noqday ayaantan youtube-ka waa laga maqnaa rabadaan baa la iska soomanaa marka dhammaan asxaabta soo dhawaada waxaan idin leeyahay rabadaan kariim insha allah rabadaanka ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo asxaabta cusub iyo asxaabtii hore joogtay asxaabta i tabtay oo yiri maxaa kugu dhacay intaba aad u mahadsantihiin soo dhawaada dhammaantiin waxaan idin leeyahay subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta aada ugu mahadsantihiin intii noo samaysa ama hadda kadib noo samayn doontana waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin intaa ka bacdi maanta waa 8 maarso waa maalinta haweenweynaha adduunka khudbadii waxaan dhageysanayay ra'iisul wasaaraha walaha waa la qiirooday qofkay hooyo soo korisay unbaa dareemi kara macno weynna la leedahay booska haddaad agoon waxaa ah oo agoonnimo yaa adduunyadan daafaandeeg iyo rafaad ugu noolaado qofkii hooyo la-aan dhacdo ama soo arkay markaad aada aabba la-aan tahay ee hooyo ku soo koriso oo hooyo haysatid wax kaama maqna hadalladii ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ahayd hadal aada u qiiro badan xuyee dallad saas isku keenahaysa xaqiiqo yaa 9 cunug baan ahayn aabbahay maanta dhintay haddii aan hooyo saa noo hayn yaa dunidan haddaan joognana silac baan ku joogi lahayn ilaa hooyaday janno firdowso ugu bishaaree adduunka intay nooshahayna caafimaad iyo nibco iyo cimri dheer iyo cibaado suuban ugu kaad qofkii hooyo soo korisay micno weyn ayay u leedahay meel hooyo lagu sheegayo haddaad aragtid waxaan ku qasbanaa waxyaabo badan oo ay hooyaday igu qasabtay inaan walaalahay u sameeyo oo aanan xeerar baa yaalay aanan ka gudbi karin dhinacna uga gudbi karin oo ay hooyaday noo dejisay hooyadu markay ilmaha isku hayso waa ilmaha kan waxay og tahay dhiifoon oo xayi wax ku soo saaranaya kan miskiinka wax soo saaran karin ayadaa ilmaha isku qasabta waayo ilmaheediiba mid walba dabeecadiisa taqaanaa waa run hooyadu waa tiir si aan u noqono walaalo isugu dhow markii ay hooyaday dhimatay cabsi badan waxay runtii aan ka qabay inaan kala dhunno aniga walaalahay
oo midkayaba dee gaar u foofo iyo reerihiisii uu ku aaday iyo wixiisii waxaa ilaahay mahadiya walaashay baa noo bedeshay ayadaa iminka isu kaaya haysa booskii hooyada ayadaa gashay sidaa darteed waxaan rabaa inaan aan idiin sheego hooyadu aabbaha la mid maaha way ka fiican tahay way ka muhiimsan tahay reer aan hooyo u joogin reer ma aha agoonka rasmiga ah waa qofka hadduu rabo aniga hala ekaadaan hooyo lahayn weligay ma dareemin aabbo inuu iga maqan yahay laakiin markii hooyaday anoo intan leeg ay baxday waxaan dareemay hooyaday inay iga maqantay intaas markaan ka gudbo oo runtii dareen adag leh hooyada Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed miidaan kasta oo la taagan yahay waxay leedahay micno aynan walo fiirso hooyada Soomaaliyeed miisaan kasta oo la taagan yahay waxay leedahay micno rasuul wasaari Soomaaliya maalin kastana waxaa taagan sikin kasta waxaa taagan gabar ooyeysa oo ilmo waxay meelay wax uga soo qaada weysay kii dhalana uu halkaa uga dhaqaajiyo oo ina awooday ku soo qabata lahayn sharci maanta u soo qabanayana aan Soomaaliya ka jirin haddii la heli lahaa sharci u soo qabanaya gabdhaha yaryarka oo halka da laga dhalayo yaa dhibkaani ma jireen gabdhaha yaryar ee halka da inta laga dhalo yaa looga dhaqaajinayo gabadhaas waxaa laga yaabaa hooyadeed daruuf adag inay ku soo korisay inaynaba hooyaba lahayn meelay ula ciisatay haysan yaa wuu dareemayaa hooyaa soo korisay wuu dareemayaa dhibka hooyo soo martay waa dareemayaa laakiin stiil waxaa la la'ayaa baarlamaanka Soomaaliya inta la hortago wax annagu inaan wax soo saaran karin inaan gaalo dabada la galna maahana wax aan soo saaran karin oo maskaxdeena aan ka shaqaysin karin waxa ku cadaynaysa in maanta inta la dhaqaaqa la yiraahdo culumo iyo aqoonyahan inta la isku tago war aan soo saarno xeer ka hor imaanayo kufsigan iyo gabdhahan maalin walba la silcinayo la dhibaataynayo qabta dadkan wala laaya Soomaaliya illa ma cuqubada dumarka laga galayo yaa wuxuun laga qabto wuxuun ganacsada jira intuu gabdha yaryar maalin walba da ka dhalo ayna bi'ad karin ay awood ay kula hadlaanaysa lahayn bil uu isku siina dariiqyada oo yaayaan kii aan waxba haysana bay hoofka xagga iska dhig kii waxaystay baa wuxuu rabaa caawana mid inuu uu helo habeen dambana mid kale helo oo midba da ka dhalo habeen kasta mid cusub buu rabaa marka madaxda Soomaaliya waxaan leeyahay yaa adinkoo dareemaya maanta aqoonta aaleedinu halka la fadhiisin hooyo Soomaaliyeed idin ku soo saartay yaa walina ay hooyo Soomaaliyeed maalin kasta meel ka ooyeyso mid ilmo lagu dhibaatay mid ilmihii lagala cararo lagala tagay mid la kufsaday mid darraysan oo nolol ameel midna nolol dhan bahaysan yaa inta gabar Soomaaliyeed saa ay ku jirto hooyo Soomaaliyeed saa ku jirto yaa waxa sheegaysin waa been aniga meeshan amaray hooyo ay soo gaarsiisay waa been Soomaaliyana ma toosayso inta cuqubada laga galayo dumarka Soomaaliyeed maanta waxay ahayd 8 Maarso maalintii haweenka adduunka bay ahayd meesha uu ka hadlayay ra'iisul wasaaruhu xuskii bay ahayd imisa dhibaataysan oo hadda laga yaabo meesha inay fadhiyaan oo hooyo Soomaaliyeed sikin kasta daqiiqad kasta Soomaaliya ka dhacda in la kufsado inay dhibaato la ooydo oo ilmo waxay siisa la ooydo ay ilmihii ay haysay ay waxay siisay intay weyso ooydo yaa in laga yaabo istaal waxay ku tagtay inay weysay kii uurka u yeelana uuna wax dana u haynin meeqa maalin kasta saacad kasta sikin kasta ay dhacdaa marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay waa wax sax ah waxaana dareemi kara qofka hooyo soo korisay laakiin ragow adinkoo dareemaya hooyo inay halka idinka soo martay
istiilna gabar Soomaaliyeed dhibaataysan tahay isma qabanayso istiil inta gabar Soomaaliyeed dhibaataysan tahay hooya isoo koriso halka isoo gaarsiiso waxba iga dhihinina inta ka badan waan ku sii qiiroonaya dhammaan asxaabta waa in salaamaya hooyo kasto dhibaataysan waxaan leeyahay Ilaahay dhibka ka bixiyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi